ku xirnow Maxamuud TV ka dhigo weelkaaga sheergare subscribe waad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa Maxamuud TV kusoo dhawow barnaamijkeena. waxaan idin hayaa muuqaallo laga diyaariyay ciidamada stateka ama gobolka Oromiya oo loo tababaray dafcadahan oo loo soo xiray tababarkooda. ciidamadan oo lagu qiyaaso cadadkooda 10,000 ilaa 15,000 oo askari oo qalabaysan kana kala kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida kuwa ka hortagga rabshadooyinka oo dabaabadaha wata iyo ciidamada lugta ama infantry-ga ee loo yaqaan military-ga oo qaab military u tababaran. ciidamadan oo cadadkooda aad ay u badan yihiin tababarkoodana la soo xiray ayaa waxay ka howlgeli doonaan deegaanka Oromiya. ciidamadan ayaa waxaa ka midaysan siyaasad, maamul iyo shacabba. hogaaminta Oromiya ee madaxda ah ay u horeeyo Abiy Ahmed iyo Lama Magasa. ciidamadan aad u hubaysan aadna loo tababaray ayaa waxaa lagu leeyahay waa ciidamo deegaan loo tababaray, laakiin arrintu sidaa inay ka weyntahay ayaad moodaa. ciidamadan oo aad iyo aad u tababaran cadadkoodana aanan soo koobi karin, qiyaastuna ay tahay 15 ilaa 10,000 iyo wixii ka badan. ciidamadan oo saaid loo tababaray ayaa waxay u howlgeli doonaan sida ciidamada federaalka oo kaleete. haddaba mudnaanta iyo wararka kale ee helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamadan ay difaaci doonaan deegaanka Oromida haddii ay Itoobiya kala tagto. haddaba deegaanka Soomaalida maxaa la gudboon madaxda iyo hogaaminta deegaanka Soomaalida? ciidamadii xoogga lahaa ee New Booliska, ciidamadii Onalif iyo intay ku dambeeyeen ayagana ma dhici doontaa in dib loo habeeyo ciidamada New Booliska, qalabayn iyo xoojin lagu suubiyo? ma dhacaysaa in ciidamadii Onalif dib loo soo celiyo intii ka maqan iyo inta joogtaba dibna loo mideeyo ayaga New Booliska oo ay noqdaan cudud lagu tashado deegaanka Soomaalida oo ku faano in ciidamo dheer la qorma dhici doontaa? madaxweynaheena ayaan ka sugi doonaa hadduu ilaa yiraahdo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.